بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 252 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم وغيره. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 16 bishii sagaalaad ramadaan sanadka 1441 isla markaana waafaqsan 9 bishii shanaad sanadka 2020. waxaanu ku jiray mawduucaani qiimaha badnaa iyo axaadiidta ku saabsanayd suxuurta iyo barakada iyo fadliga ay leedahay. fadlu suxuuri ama fadlu saxuuri fi ramadaan ayaanu maartay ku jiray axaadiid dhowr oo ku soo aroortay baan rabnay. way badan tahay laakiin aan qayb kamid ah ka qaadano. xadiidkii koobaad khamiistii oo daraadahayd baanu qaadanay. waa xadiidka 251 oo nabigu lahaa calayhi salaatu wassalaam: as-saxuuru akluhu baraka, uu lahaa falaa tadacuuh. maanta waxaanu qaadanaynaa dhinaca kale iyo fawaa'id kale oo suxuurtu ay leedahay. xadiidka hore nabigu noogu sheegay inay suxuurtu cunitaankeedu ay baraka ay tahay. maartay suxuurta barakadeedu uu ilaahay maartay uu ku ammaanayo addoonkiisa oo ugu naxariisanayo, malaa'igtana ugu ducaynayso. barako kale ama fadli kale oo ay suxuurtu leedahay ayaanu maanta qaadanaynaa. camr ibnu caas radi allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu leeyahay, rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam: faslu maa bayna siyaamina, soonkeenna iyo wa siyaami ahli lkitaabi, ahlu kitaabka soonkooda iyo soonkeenna waxaa u dhexeeya, kala saarahaya ee kala soocahaya aklatu saxari, suxuurta cunitaankeedu wey. xadiidkaas kooban waxaa xadiidka soo saaray imaam muslim kitaabkiisa saxiixa, abu daawuud iyo keyrkoodba way soo saareen, iyo nasaa-i iyo tirmidi, intaba ibnu khuseymaba. marka xadiidkaa gaaban wuxuu nabigu noogu caddeeyey innaga muslimiinta ah soonkeenna, muslimiin haddaan nahay, soonkeenna aan soomayno iyo soonka ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara ay soomahayeen, ilana ayaguba waa lagu faradleelay sideen oo kale, sida ayaddu caddaynayso. waxa kala saaraya kala sooci waa suxuurta cunitaankeeda wey. limaada? liannahum maa yatasaxaruun, ayagu mayn suxuuran jirin, laakiin innaga waxaa naloo sunneeyey oo sunno ah inaanu suxuuranno. saa darteed baa aadaabta soonka iyo sunnadiisa, sunankiisa waxaa ka mid a asuxuur baa ka mid a. idan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab, ahlulkitaabka soonkooda iyo soonkeenna waxa kala soocahaya aklatu saxari, suxuurta cunitaankeeda wey. min hunaaba ikhwati fillahi waxaanu ka faa'idaysanaynaa xadiidkan. hadduu xadiidkii hore noo soo sheegay fawaa'idda ee maaragtay suxuurta ay leedahay. kow uu nabigu yihi barakay leedahay kii hore. laba uu yihi ilaahay baa maaragtay addoonkiisa ugu naxariisan ama ugu dambi dhaafi ama maaragtay ama ammaanhaya, malaa'igta u ducaynaysa. xadiidkanna waxaanu qaadanaynaa oo faa'iido ku jirtaa soonkeenna iyo soonka ahlulkitaabka kala soocitaankiisu iyo waxa lagu kala garto suxuurta weeye. macnaheedu ay tahay markaa mukhaalafatu ahlilkitaab, si loo xaqiijiyo inaad suxuuratii. idan waxaanu leenahay iyadoo kooban, fawaa'idda suxuurta waxaa ka mid a albaraka. fawaa'idda suxuurta waxaa ka mid a malaa'igta qofka u ducaysa. fawaa'idda suxuurta waxaa ka mid a ammaanta ilaahay iyo sheegitaankiisa addoonkiisa suxuurta uu ku sheegayo cinda almalaa'ika. fawaa'idda suxuurta waxaa ka mid a mukhaalafatu ahlilkitaab, ahlulkitaabka oo la khilaafo, yahuud iyo nasaara la khilaafo. fawaa'idda suxuurta waxaa ka mid a itibaacu nabiy, itibaacu sunnati nabiyi calayhi salaatu wasalaam. idan nabigu uu jeclaan jiray mukhaalafada yahuudi iyo ahlulkitaabka inuu khilaafo. idan saa darteed baa khilaafkooda wuxuu ku xaqiiqoobaya inaanu suxuuranno. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay ina sida soonka sida iyagaba loogu faradeelay innagana loogu faradeelay: ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. idan dadkii naga horreeyey in lagu faradeelay soonka ee keligeen unagu hayn, laakiin soonkeenna iyo kooda waxaa lagu kala gartaa oo farqiga udhexeeya. ayagu mayna suxuuran jirin, innagana waan suxuuranayna. markaa nabigu suxuurtu tasaxaru. idan haddaad rabto inaan xaqiijino, inaad xaqiijisay sunnada nabiga, inaad xaqiijisay hadyiga nabiga ee dhaqankiisa, inaad xaqiijisay nabiga siduu jeclaa oo mukhaalafatu ahlulkitaab la khilaafaa, inaad suxuurati baa weeyaan markaa sunnada. marka faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab
soonkeenna iyo soonka ahlulkitaabka waxa faasilka ee kala saarahaya ee kala sooci aklatu saxari akla baadihi aklatu saxari suxuur cunitaankeed wey. idan ikhwati fillaahi aanu ku dadaalo inaanu markaa suxuuranno. waa shay sunna suxuurta in la suxuurto waajib kuguma, laakiin waa sunno cadiima oo fadli badan oo itibaaca nabiga iyo maxabadiisa iyo ahlu kitaabka khilaafkiisa iyo ducada malaa'igta iyo ilaahay sheegitaankiisa uu kugu sheegay intuba lagu xaqiijinayo wey. ilaahay subxaanahu watacaala ha naga dhigo kuwa intaaba la yimaada, ilahay naga dhigo. idan waa miise cajiiba iyo maaragtay astaan soonkeenna muslimiin haddaan nahay iyo soonka ahlu kitaabka lagu kala saaro. muxuu yahay? waa suxuurta cunitaankeeda wey. maadaama ayagu ayna suxuuran jirin, innagana inaan suxuurana nalagu booriyey, marka halkaasaa soonkeena lagu kala saaray. idan suu soonkaadu uu u khilaafo oga duwnaado soonka yuhuudda iyo nasaarada, tasaxar ya maarata ya cabdallahi suxuuro. idan waa waxaa weeyaan fadli aada u weyn, ama waa miizo ay leedahay suxuurta iyo qiimo ay leedahay wey. qiimo ay leedahay. axaadiid fara badan baa kusoo aroortay xadiidka saxiixaanka sidoo kale, tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka. war suxuurta baraka ayaa ku sugan, barako ayaa ku suganoo nashaad iyo awood iyuu qofku ku helhayaa, iyo barako iyo khayr badan buu ku helhayaa, iyo barako iyo khayr badan ayuu ku helhayaa. sidoo kale nabigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam, albarakatu fi halaatha, barakadu 3 arrimood bay baraka ku jirtaa: fi ljamaaca iyo wasuxuur iyo wathariid. jamaacada oo midnimadka ah, iyo suxuurta, iyo cuntada hilib maaragtay rootiga iyo hilibka iyo waxaa laisku maraq liskaga dhigay ah, rootiga oo maraq hilib looga dhigay, thariidka la yihahdo. idan ikhwati fillaahi, suxuurtu waa shay qiimo badan wey. suxuurtu shay aada iyo aada u qiimo badan weeyaan. idan xadiidkeenaas waxaanu maanta halkaa ku ogaanay inay maaragtay fawaaidda suxuurta ay leedahay inay tahay, waxay kala saareysaa soonkeenna iyo soonka ahlulkitaabka ayay kala saareysaa, lagu kala garanayaa. idan waa mukhaalafat, waa taxqiiq mukhaalafat ahlilkitaab, mukhaalafat alyahuudi wanasaara xaqiijinteedu waa suxuurta weeyaan. ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa xaqiijiya maaragtay arrintaas mukhaalafaadka iyo la khilaafaya yahuud iyo nasaara, oo nabigu yidhi hadda uu yidhi in badan xadiisu ku sheegay, uu yihi maaragtay khilaafa sunnada nabiga iyo suxuurta barakada badan kuwa xaqiijiya. ilahi subxaana watacaala ha naga dhigo. hal mar baan xadiidka akhrinayaa. alxadiiثu 252 can camr bn caas radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaabi aklat الsaxari rawaahu muslim. hada wsala allahu calى nabiyina muxamadi wcalى alihi wasaxbi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu.